afar ragcadood tukade salaada casir jamaacada sugahayo masaajidka intii loogu galay dhabanka laga toogtay taasaan aragnay waa halkan dhow waxa kale culimada ay garanayaan ummadana aan xasuusinaya nin sheekha oo culimada waaweyn oo Soomaalida kamida oo kutubtu qoray laga faa'iideysto masaajidka intii loogu galay asagana in lagu toogto Soomaaliya wax diin oo shaqo ay ku leeyihiin malaha haday diin shaqo waxan ay la baxbaxayaan macallimiinta iyo dhakhtarinta waa dhoolatus iyo tagtis ay ciyaarayaan waay maxaa u sababe Soomaaliya dadku waa muslimiin arday graduate gareynayso baa intii la qarxiyay inta dhimatay kuwa baas buuxaan oo madrasada iyo tacliintu u socdaan baa lagu qarxiyay magaalay ahaayeen waxa annaga nala kala mirmirhayo waa wax la rabo annaga iyo dawladdanada in iskala ka horkeeno oo ugu dambeyntii markay kuwa soo cararaan kuwan hadda aan leenahay aan geysano hanoo akhriyaan way ku xigaan kama fiicno kuwii masaajidaha loogu galay taawata xal Sooma halka waa sidaad u sheegteen intana ay idin sabood garaysay ragga ciidamada u soo shaqeeyeen KBR iyo Home Guard qoryaha loo dhiibay wiilal loo raacayna odayaal caadi ah loo dhiibay hatta tababar ma laha rasaasta waxa ku yaraatee ragga ciidamada ka soo baxay oo fudud GSU ha ka soo baxaan military police oo kuweena ah waxaan rabnaa dhaqaalka faraha badan ee meel bilaash iskaga baxayo security-ga kuwa ayaga in la habeeyo oo naloo badiyo waliba oo ayagoo fara badan la qoro kuwaas hadaba kici karaan oo meeshooda ugu tagi karaan waa la sheegay sareedo maalintii la galay ka hor intaan la gelin inta Soomaalmood bay joogeen oo reportkooda la soo sheegay shacbiga hadda waqtigan waxa ay sameeyni karaan oo kaliya waxay arkaan inay soo sheegaan maxad kala qaban kartaa adiga manin waxa wato oo ani habeenkii kamuuda la gelay korkora baan joogay qabri baan u kacay 7 saac 39 daqiiqo ya baasukuhi u horeeyo dhacay ka horna telefoon waxaan ku helnaa xabada inay daadiyeen 6 bay rideen halkan taagneen korkora waa dhulkaana la gariire marka raaciyad maxay ka qaadi kartaa dadkaas iyo dad gacan maran waxba kama qaadi karaan laakiin waxay yeeli karaan haday hubaysan yihiin tababarna ay leeyihiin wadankana ay u dhasheen oo ay rabaan wadankooda inay difaacaan oo u dhintaan waxay sameeyaanba intay daba kacaan bay eber ka soo dhigi karaan nin waliba naf waa jecel jannada lagu sheegay waan galay naftooda ay ka jecel yihiin waxay arkeen wax si weyn oo hortaagan oo waxay sameeyaan intuu daba kaco edeb siinay inuu jirin bay arkeen ma ogiye jannada inay janno ma jirto meesha janno inay jirinna way ogyihiin mid mishaar la siiyo iyo inay iska tuntaan bay rabaan marka waxay ila tahay waxaan idinku sabood gareynaynaa raayigii hore la dhiibay ciidamo kuwa naga ah oo qori iskaga dhiibay ka casaabo isku dhufaniba tababar ma lehe rag tababar leh oo ciidamada soo mare in loo qoro taasaan rabnaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم. وهي العقال شينا. حدانا الإسكرين هاي وضعه. شوف فيديو بالعادة تري. حتى وكل وصاع عرضي. أنت عرفت إيه يستاجني. وين الإسكرين؟ ما يحاول سيدي بوي. روح يقول كلك تعالي وضع نوبة كسيه وصوته. وضع عقال هاي ما الكلام. هذا الحمد لله من هذا الإسكرين هاي وضعه. Garissa County إلا كلا وين مقطع والله كلا خير هدي لا كلو مين وحال يجري وكسايا لكن وحاضر 10 سنة كدم يا كلام خلق الدنيا 10 سنة كدم ما إنه يتو ما كل ما يطبق هذين اللي تدري كم يطبق هذين اللي تدري يبغى عمل كل تدري جاري له يعني كان له عامل أو السنة بنان فوق كله بتقولوا كنت تاكله هذا كان موضوع معايا قد كأنت دبي دبي كي معنا السنة أول نقولها كويس إن بيان مبسط وأنا هذا لا لما كنت هذا جاي بينجيل وإذا توضينا محكمة تاعنا محكمة اللي يقول شفتوا ما شيء
كون هذا اللي هذا ما شيء ما كهرت المسؤولية ده يقولوا المسؤولية ده هذا يصير ما حد هاي وأنا أضيف للتطهير وأنا اللي سكهلين إذا ما كان يصير والله وحنا ما علمني قبلنا ما تشكر أسوية هذا ما صنع وعن كم هاي قال كاونتي أو بوليس أنت بون دونك الكوبرتي إست أن سنترال أفريقيا مش هون الضوء ما أنت إني المجالس مجال لا تاون كموجي سكول أحسن إنه سجين أريتا يا ليوان كم يا لسوي وين مرك عيدكم ماما هذا نور إنسان اللي دولتكم ما قد أبى دولت أي دول كوب بعلم أريتا يا ليه حكمي وأنا سويني أنا وأنا سويني أنا سويني ما أنتي نكيا كباكي ليبيا مكسر نقلي أو ناشري إنه صوص حي إذا ما ذكي أنا الصومالي كلاهيان أو الحاجي أنا بيه أوسمان سجوا ذكي كهذا إذا كجري وهو يو جماعة خرما كده هيسيو إيجاديو يا كل شيء ناسنوي وحان سماي كفن مالك اللي بحنا إذا ما ذكي أو بوابين هي نايو استاديو يسيالكو ولا شيء يلو قبلها يلو الصومالي يودر هي هذا الفروق قطعت كدم بيسوي وهي كينيا كلا ماشي كوي الجيش كأنا نوم على كي بعدين قال دعا ديلا قريها بقول سكت بيا كعب ما يكسر صوف سلامات مع لويا ولا كيسرني محمود أريدا طبعا سنة كدم بي يعني أغاني وهي ما أنتوا كأهيا أنتوا هذا مع صاحبي way forward مع ظني هذيك مع مصلحة وها مصلحة كو نبكى هاي تابل كفديو إلى ذيك النمطان مرت هاي تابل كذا كفديو أما سياسات هذا كوجي أما كسي مغنون عضو حتى غالي عبورتا وسويس ولي ما وضنا كمان هاي كليه وحى عن كل باني كرنو أما عدو يسكجع عيل كرنو وأنا نجى سوجي سلوم وأنا نسعفله وأنا نوجانه قولي جينا والله صحيح نمكن وحنا هذا عني الله يا بنا نوسينا بوحوجي ذاك الشيء ويوجي ذاك الشيء ويوجي وأنا هو يسوق على وضعك ما نوع فرنتيرا نوع فرنتيرا كوينا بدي مياه وما نجى نجتني مسوا فاميسي دور دكي ماي وأنت أجنبي وقدر كودي سلوكوي كان أجنبي الجوان طبعا أنا كان واحد الناس صارن هيا وحوي إذا ما نبدي وقعي نوض الصومالي بصوت بالله واحد دمي وقالوا أنا اللي بدي ما ما كان ماشي خصوصا وحيالها سياسة لها كصوبه قبيل لما أنا عن سكول ريال الباكني ريال الباسا هذا النبى لك بتما يوم حنا هاي ولا ضوء وحي دولتي وكان يريك قالتين قالوا قدام حسان نو يشي لما أنا أقول لك بتما لما وحقوق هذا الدب شلي نبى هايستي ما كان نبى هايستا مين ما كان هايستا على ما شيء ما عندنا هذا نبى تجارسنا وحكي طبعا لما يوم أنا هذا الشيء نميت هوسيال حدوبا إيدي ملك نيك دليله موالي هاي بسواب مية وإن بيتك الحلالة ميدان هوسيال إلهي لو كنت رابطي حبيبنا ويتو وحان جوغان وقيلو أرونت إلى جوغان 16 كيلو من تركبا ماشي بمك اللي عادي بدان كان تاقنا قلتال كمركي لطورة وقولك كله جمرك عن بلانك كفة ديبو إلي جليله المعصى يجي أبي بهنيين دولة بهنيين سياسي إننا بتكلمون للصوم شكرا كذا رجال سيقول هالجيل أقولك أن كبح النو وعربا إن تنقاسينه إن دجال إلا منه الشباب كتن
inaan cilaadino ma isku raacsannahay ma isku raacsannahay gacanta taaga maxaa al-shabaab inaan la dagaalano al-shabaab inaan la dagaalano soo diyaar ma nihi annaga inaan midowno soo diyaar ma nihi dadka al-shabaab inaga reebi karo xuseen macallin baa sheegay wiilasheennaa la qori sidii gobolkaa dhexe Soomaaliya raggaa hub la siin annagaa iska celinayna bii baa naga celin karin military baa naga celin karin nin ilaahay abuuroo naga celin kara ma jirto gumaysiga waddanka yaa ka heliyey gumaysiga waddanka geeska Afrika iyo Afrika oo dhan haddaan xooga badnaa yaa ka heliyey dadkii lahaa baa ka heliyey al-shabaab annagaa iska celin karnaaye shirkan idin iskugu imaaday mid aanan ahayn oo dadka madaxda oo imbiyaasha iyo gabanaha iyo odayga anaga sharafta badan Yuusuf Xaaji ay ka mid yihiin oo guddiyaalka nabadgelyada loo yeero oo jiifafka loo yeero oo dowladda loo yeero aan u fadhiisanno sidii al-shabaab markaa tilaabo loo qaadi lahaa iyo wixii la samayn lahaa hadda midkana waa baraarujin oo maanta waxaa weeye cigaashiina wuxuu ogaaday in cidda la galay aniga intaas hadal kaga bilaabay wax dhab haddii loo jeedo waxaan waa wax dhib yar qori kama sharaf badno waxaan la leeyahay al-shabaab way dhimashada ogol yihiin wax jira maaha runtii xaqiiqi maxay indhaha u xiranayaan hadday dhimashada ogol yihiin dhimashada hadday ogol yihiin meeshii ay galeen waa ku baristaan oo ku sugaan dadka nin walba nafta way xanuunjinaysaa nin rabo inuu dhinto ma jiro laakiin waxaa weeyo dhabtii wixii ka hortagahayay yaa noo muuqanin markaan aniga moorigayga waa mid codsan laba mid aan yeelo dowladda ha noo qorto KPR waliba wiilasha reebaadiyaha ha noo qorto kuwan magaalada joogaan yaan la qorin kuwa reebaadiyaha ee dhimashada dan kala hayn ha la qoro midda kale haddii aan la yeeli karin oo dowladda ay shaki laga qabto waxay ila tahay annaga aan isku afgaranno dowladdan u sheega aan samaysanno maleeshiya xalaal aan samaysanno nimanka baan iska celinaynaa waxaan labada ahayn waxa kaloo dhan waxay noqonaysaa sheeka liska yiri un hadalkan ayuu naga noqonin mid intii la sheegay laga tagay ayuu naga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fara badan oo beeska booday kule oo huluuqo kule oo qotilay kule oo libooya kule oo diif kule in laga soo celiyo waddankoy kaambiyahoodii ka soo tagan ku noqdaan waxaan ka codsanaynaa dowladda ciidamada markii la celiyo qarashkii ku bixi jiray 0.01 inaan ku spend garayno inaan KPR aan xoojino maxaa u sababe 20,000 oo ciidan baa joogtaa waddanka maalin walbana waa nala galay waa nala dilay baan leenahay horta ciidamada inay noqdaan oo back to base meeshay ka imaadaan ku wada noqdaan annagana aan KPR xoojino shirkan maanta kii tale laga helay ma aha kii liska hadlay waaye waxaan rabnaa gavanaga inuu noo qalqaaliyo reer ijaara ku noqdaan reer faafina faafi ku noqdaan reer lagdheeraana noqdaan maxaa u soo saddexda constituency umbuu dhib saamaynhay gaaris waxaa soo gelihay kuwii laga fiijinay huluuqo iyo libooy iyo faafi kuwii laga soo erinay jaaraa jila gaaris soo gelihayaan sidan ay al-shabaab u imaan haysaa haddii kabta aan isu tashanno wax run baan isu sheegayn maanta waxaan aan ka hadli hayno kutarakuteen is aad baan sheegi haynaa haddaan kala galbanno si dhab baan isula hadlayn sawaaxilna wuxuu dhahaa hakuna Syria watu wawili 200 ruuxaad meeshan soo gelinseen afkaa kala qaad ilkaa aan tiree baa joogtaa ninna run ma sheeg rabo marka waxaan rabnaa horta KPR in la xoojiyo ciidanka fasaadka far badan ay iska noqdaan ayaa la hadlay Henry Garissa High School iyo Henry Boys Town iyo Dean School of Education kuwa cashaynaya hotel ku yaalo Badogo oo la dhaho Sama Hotel markii uu dhahay ninkii uu la hadlay wuxuu ku dhahay Agalin University caawa wax baa ka jiray telefoon soo diray wuxuu dhahay maxaa jira war cashaan tukade isbitaal la joogo meesha waxa kama jiro way waan ku hadlay ma
marka sama hotel ayaa la nimankan madhow lagu guuray xaggaas ay tagaan oo wax ka soo cunaan ninkan dean school of education wuxuu saxidaa school guriga ku qabaa telefoon loo soo diray waxaa lagu dhahay haymaanin university caawo waxaa jira nimankaa soo gelaya meesha telefoon uu soo diray guriga fadhiyo markaasuu u dhahay war maxaa la sheegay maxaa ka jira war isbagtaan la joogaad cishaan soo tukanay waxaa ma jira imaaw labada heer musta waxay socdaan madhow asiga u dhami imaanay waxaan seexan sama hotel ku tegay nafaasi ka waay wuu soo tagay wuxuu imaaday guest house nafaasi ka waay police meesuu tagay nafaasi ka waay waan jalaabi telefoon u duru dheh kaale mar iskuulka igee university kaale igee ninkaa iskoo soo siiya ilaa inin aragkeeda marka hor dhibaatadaasaa jirta haddii wax yar ka dhaco meeshan kuwii waxaa sheegayna secondary school primaryga kuwana way tegi doonaan marka meeshaa iska xirmi doontaa marka waxaan leenahay arrimahan ammaanka aad ha loogu dadaalo dowladdan in ay aada usoo fiiriso arrimahan waay marka waxaan rabnaa patrol in la sameeyo habeenkii way joogaan askar nagu filan annaga laakiin tiradooda way badan tahay inaa meesha ka sheego ma rabi bal waxaan rabi lahayn in